soo dhawaada ardayda qiimaha badan leh mar labaad soo dhawaada waxaan wadnay drugs of diabetes daawooyinka lagu daweeyo xanuunka macaanka ayaynu ka hadlanay marka hore waxaan uga soo hadalnay laba gruubo hore maanta waxaan ku hadlanaa dawo hal gruub oo kaliya dawada loo aqaano metformin waa dawada markaa first line of drug amba lagu bilaabo dad kale macaanka qaybta markaa type 2ga ayaa lagu bilaabaa dawadan haddaba waxaan isla eegi doonaa intayna dawadan gelin mechanism of actionkeeda si dawadan u shaqeyso ay jirka uga shaqeyso aynu isla fahmi doonaa metformin waxay markaa reduce karaysay hoos u dhigtaa hepatic glucogenesis inuu beerku soo saaro markaa glucose cusub caadi ahaan beerkeenu tusaale ahaan markaad maanta cunto qaadato haddii aanad markaa waqti dheer cunto qaadan beerkeenu wuxuu inoo soo saaraa glucose joogta oo wuxuu sameeyaa markaa gluconeogenesis in glucose cusub la soo saaro si markaa jirkii loogu ilaaliyo glucose ayna markaa hypoglycemia nagu dhicin markaa taasi hoos u dhigtaa inuu beerku soo saaro maxay number 1 waxay hoos u dhigtaa inuu beerku soo saaro glucose cusub ayay hoos u dhigtaa dawada loo aqaan metformin sidoo kale waxay noo qabsataa inuu hoos u dhigto absorptionka lagu sameeyo markaa intestineka midhiciradii in laga soo nuugo sonkortii ayadana hoos bay u dhigtaa dawada loo aqaan metformin sidaan idiin soo sheegayba dawada metformin waa drug of choice-ka lagu daweeyo markaa diabetiska macaanka waliba qaybta maxay type 2ga waxaan isla eegi doonaa pharmacokineticskeeda dawadan waxaa si fiicanba markaa loo soo nuugaa marka laga qaato afka inta badanna markaa ma qabsato borotiinada beerkuna metabolismka waxba kama bedelo dawadan waxaa laga saaraa kaadida la raaciyaa dawadan oo markaa waxa laga saaraa kaadida side effectga dawadan ay leedahay waxa kamid ah markaa inta badan waxa lagu arkaa GIT symptoms ayaa lagu arkaa GIT symptoms baa lagu arkaa oo qofku muxuu yeelanayaa ama teed xumo wuxuu yeelanayaa nausea iyo laaligo wuxuu yeelanayaa vomiting matag wuxuu yeelanayaa abdominal discomfort wuxuu yeelanayaa diarrhea astaamaha lagu arko dawada metforminka markuu qofku qaato dawadan waxay contraindicated ka tahay on la siin karay dadka aan la siin karin waa dad kale markaa renal dysfunction waliba marka waxa la yiraahdaa marka qofka la cabiro kalidiisa creatininekiisu haday ka badato 1.4 ma wanaagsana in la siiyo markaa metformin oo waxay badisay markaa risk ku tahay lactic acidosis ayay badisaa markaa lactic acidosis kay badisaa dawadan sidoo kale waxa loo isticmaalaa lagu daweeyaa oo treatmentigeedu mar labaad noqon karaa polycystic ovarian syndrome marka waxa laga yaabaa dumarka qaarkood inayna ovaries amba ku xanti soo bixin waliba dumarkaas oo noqday inta badan dumar burburan taana waa lagu daweeyaa dawada loo aqaano metformin